kulankan orodka ee ka dhacay Djibouti ee la yiraahdo kulanka Djibouti oo ay soo qaban qaabisay xiriirka orodka dalka Djibouti waxa ku tartamayay 50 ciyaaryahan oo ka socda 14 wadan waxaana orodyahanadani oo iskugu jiray rag iyo dumar ay ku kala tartamayeen 200 mitir 400 300 ilaa iyo 1500 mitir waxaana ku guuleystay orodkii ugu dheeraa ee 1500 mitir Abdullahi Jaamac Maxamed oo kamid ahaa orodyahanadii ka socday dalka Soomaaliya muddo dheer ayaa ugu dambeysay orodyahanada Soomaalida in loo saaro astaanta calanka waxaana Abdullahi uu fiyaweeda uga waramay dareenkiisa runtii maanta dareenkaygu aad buu ka xasan yahay ilaahay baa mahad iska leh guul aan in badan filaynay maanta nagu guuleeyay runtii aniga iyo orodyahanada kale ila socday ee wadanka ila matalayay aad baan maanta u faraxsanahay maadaama aanu kaalmo ugu horeeyo ka soo muuqanay waxaan rajaynaynaa kaalmo ka fiican iyo bilada ka fiican inaan soo hayno Olimpikada adduunka inaan ka muuqano insha Allah World Championship inaan ka muuqano wadankayga inaan soo saarnay doonayna insha Allah diyaarna u nahay kaalmaha labaad saddexaad iyo afraad ee orodka 1500 waxa sidoo kale ku wada guuleystay orodyahanadii ka socday dalka Djibouti dhinaciisa Cabdisalaan Maxamed Axmed oo kamid ahaa orodyahanada Soomaalida waxa wasna ku guuleystay 800 mitir waxa uu u sheegay warbaahinta inay u tahay farxad weyn maadaama uu noqday orodyahankii Soomaaliya ee muddo dheer kadib ku guuleystay in loo tubo astaanta calanka